ما حد عكريا إمي كدي ما حد عكريا صدق شيء السؤال وين؟ صدق شيء ما فينا أنا سيرة تايم إلهي والله أعلم واحد عاي وين إلهي بعلمي كامل ومطلق أقول لكن صدق شيء ما فينا لما ور ما حافلنا شيخ وحافلنا إنه يحب بدي عويان ضلكونا نبض وكتجاب حاجة رجالية لما شيء مهمة عقلنا رجع وطن كحري ويش بدلين حقوس كبدلين هرت وحي سبيه لقد لو بحي لقد دجين تدتك لقد سياسية وضلك دجينيسا أو بسائل وكبوغدو أنا وحن كيابي فقه سيرة الرسول كصور نوعه صلى الله عليه وسلم نبي مركم مكفر وحوري وانكي قال قولي سوى آمن نينكي أقل كأبو سفيان تقال أبو سفيان هذا قال أبو سفيان وعدو يسي استراتيجي قال رسول الله وآمن بولي كعبدنا وآمن نينكي كلها أقل كي لا نينكي تقال وآمن وحينا رقلي نينكي كنيسة قال وآمن وتروريس وارجعيس وكنيسة دومينيان ساكا waxay leeyeen aqaliyadka dadka yar yar ee laga tira badan yahay hal la ilaaliyo war kaniisad ninkii gal waa aamin buul sel ba ku jira ninkii miskiid galna waa aamin ninkii xerada ciidanka galna waa aamin ciidan ninkii u taga aamin ninkii nidaamka ka baxa waa aamin ninkii hub soo qaadan waayana waa aamin inagu wali ma waaya dadkii oo dhow dajiyay لبرتو محو سميني كريم وحو لحيدي دولديه ووينها وروشو كبيدي هاي روشكي waxay ka yiraahdeen markuu baxsanayo odayga Bashaar kelmad jeedi kelmadii buu jeediyay wuxuu anu waan ka tagay wadankii waa ka kelmad fiican buu jeediyay sinad galiyaha oo socdo marka hal wareejin ra'iisul wasaarihi oo nidaamkii hore u ahaa ra'iisul wasaare iyo u tageen waxay yiraahdeen malafaadkii wadanka feelashii wadanka ninka haya sidii Ciraaq iyo Soomaaliya ku dhacday inay baabiyeen xajiya feelasha wadankana si ku meel gaar ah maamulka haya annaka ciidankii ah waraga la dagaalamay كمان تورن ما ينحرن ما ينحرن وحمينا يلين نيكي حالي مركو هذا وحيري جيلاني بعد وحيد عنقو وان جوجا جوري كمان تغيو ودكينا وسي حكميا لان ملفات كمان هينا فيلا شيء waxaan ku wareejin doonaa markay kuwani keenan dawlad ba dawlad wax wareejisa illa ma jirto faraq ba dhacay saddex wuxuu yiri meel ay dawladdu leedahay lama boobi karo looma dhawaan karo dhowr qof baa baana ku yaacay gacanta lagu qabtay saaka waxay bilaabeen hub ururintii hubkii gacanta dawladda ama jabhadaha ku jireen waa la urinayaa afar weeyaan arrin kaloo halis ay bilaabayaan waxay bilaabeen inay yidhaahdaan dadku waa labo dad dambiyo weyn galay iyo dad dawladda u shaqeynaya dawladdu waa dawladdeennii qof oo iyagoo khalada loo shaqeyn karaa kuwaas waxay yidhahdeen waa ummadda ka mid yihiin dadkii dambiyada weyn galana shicibkaa la xisaabtami doonaa وعدالة انتقالية لها كلا وريق نوع وين عدالة النحو هذه اللي عويض هو بروبلم تطبع حبسية كسوبة حيكو قريرية قبلها حبسية مريكا كسوبة حيين صورة دواء عجيبة نيد واحد هذا المحاد عاي وأنا صوبة وأنا حرين على الجيل ويأتي إنك مبور ما هلا ربما هي بس الدم حسين باي مدير هذا إلى سو صار وهر أودن بيسي وهدونك بأودن بيس وهبليره وحاسوبة حي نيكي مركي حمل ويريري ديارة كعية صولة للإيديدي oo marka ah 26 jir maanta waa 5 jir oo 7 jir duq muu arag ko 4 sano xulu adduun 4 sano ma arag اعلامكي wax walba laga xidhay xabsiga saaka soo baxay meel iskaga jira kaligiis dhowr boqol oo qof oo ku xukunaa in la diilo saaka subaxii laba saac ka hor intii wada yaa soo baxay waxaa soo kamid hooyo iyo inaan ishelay maarad oo isku dhigaya oo 14 sano kala maqan farxadda ka badat oday baa xabsiga ka soo baxay zaani wuxuu tagay qabuurihi faamiligiisoo dhan ku jiraan isaga ka haray odayguna waa 7 jir weyn suwar waxa soo baxay musri ah dadka cadaalad u baahay cadaalada ma waxaa cadaalad intiqaali kala guurka dhada wayna helaan taana uu ballan qaaday ninkan nin miskiin ah madaxweynaha kuma socdo dawladda ma doonayo مسكيتك أمويد وتجي
khudbad buu ka akhriyay risaalad bay ahayd ninka jabhadda maamulahaya ها الشعب رسالة الدرية وحول انتهى زمانكم ذاتك سنة صلى الله عليه مسجد كأموية سنة سمي ما جورا مسجد معاوية بن أبي سفيان لكن نعانى لعنة يوتهي رسالة الدرية نين عادي أما بركة تاسي waxay keensanaysaa maxay inay wax badhicin si salis loo kala wareego dawladda waana shicib bisal oo cilmi leh aqooyahan koogi oo dhan baa wada hadlay adduunka joogay wallaamina midada ragii cilmiga lahaa oo dhan jaamacadaha dhigay hal dhan bay hadlay la saaka waa soo socnaa midada naabulis baa kamid ah Mosul ka soo baxay Ciraaq jooga waa soo socnaa midada si boodka loo baadiyo gudaha mustaqbal bay arkayaan marka taas waa sinoodka labaad dhici karay wax weeyaan inay jabhadan istiidaan ay dagaalamaan ma xoog badna laakiin way dhici karaysaa marka iyaguna maxay isku tirayaan laba shay inay isku diidaan xukunka aan qabano iyo may xukunka shicibka ku wareejino ninkan goolaan wuxuu leeyahay annagu waxa ma qabayno annagu waddanka xoreyna shicibka ka mid noqonayna ciidamadan galina waddanka waan shaqo tagayna laakiin waxaa la sameynaa dadku qofka doortaa ma u dhiibayna waddankii waa soo celinaa inay taa dadka hor yimaadaan gaasatan taas waa laga baqayaa suuragal wax ka dhacaa dad qaar ay power raadinayaan marka xarbi waxa dhici doona ahliya markaas bisaddaxaad baa jirta dawladdii camiiqa ma jirto waddankani laakiin waxaa jira alqabiila alcamiiqa hubbuyn bay haystaan qolada calawiyiintu meelna way ku urureen baa qaar la sheegaya inay iyaka iyo israa'eel wax isla fahmaan oo xalay way garaacaysaa ilaa israa'eel way garaacaysaa halka diyaaradaha taasina waa laga cabsanaya marka israa'eel waa la isdirrayaa ha loo soo gurmado dadka laga tira badanya markaa faragelin markaa lagu sameeyo arrintaasi idan waa suurtagal weeyaan marka ilahaas baa yaa suurtagal saddexda scenario waa suuragal kaas waa tahay saaxiibkii siyaad baa wuxuu isoo dirayaa breaking news oo hadda ma aragtay la sii daayay channel 1ka ruushka ayaa laga soo xigtay aqalka Kremlin ee lagu afgambiyay madaxweynihii Suuriya Bashar al-Assad iyo xubnaha qoyskiisa magangalyo la siiyay sababo bini'aadanimo wuxuuna hadda ku sugan yahay magaalada Moscow wasaaradda arrimaha dibadda ee ruushka ayaa bayaan ay soo saartay maanta oo axad ah ku sheegtay in Bashar al-Assad uu dalka isaga baxay kadib markii uu iska casilay xilkii uu hayay isla markaana uu soo saaray amaro uu si nabad ah xilka ugu wareejinayo shadarxan waxaan soo laabanaynaa taxliilkani ragga hadda waddanka haya dad badan baa laga yaabaa inaysan garanayn waa kuwa maxay yihiin iyagu اوكي واسع جزاك الله خير horta warka war fiican inaad تعليق صار warka faalin saaro horta waa loo waji fiicnaynayaa waddanka uu wareejiyay si nabad ku wareejiyay waa lagu qurxinayaa waa ninka waa baxsaday وعري waxa ku qoran farra amba haraba soo carabi waa baxsaday baxsigana waxa keenay loo bilaabay ka bil warka hor gacanta uu soo fidiyay odayga dhahdo Erdogan gacanta markuu soo fidiyay wuxuu ku waraa heshiino adigana meel aan ka saarno dalkana dadka shicibkiisii aan ku soo celino uu diiday wadano badan waxay diyaariyeen iyaa bedilaya Bashar marka istaadkay beeladeen ninka Bashar bedilay ma taqaana nin baa fadhiyay Imaaraadka imika dawladda ka mid ah jiray ninna wuxuu fadhiyay Iran يا سو بشار بدله بشار بدله تركي هنا وحو دياريه إنا بشار للريدو وشعبكو أي دورتان قف كيربان بتهبل غشقي بقى تيبا هيرجع شيء مركا بحثيس وحي هيد استراتيجي لكن كلمة روش كوحو كين لا سي او والصين كان بالجريس سياسة خائن لضبط أرضي وحلاهي معها هذا ولا حسابين دون هذا محكمة عنك هذا وصعد سأسيسي لكن يقول إنك وحول وريجي وطنكي ونو بابوك إلى لي وريجي ما كان حاسي تن بليادتني ما هتتاه ما قالوها جنية سياسي سياسي ويانا ورت جبهدوه وحول كلا بحيان يعني أفر يوكلا بحيان جبهدو إسلامية يا جبهدو إسلامية إسلامي كان لنا هاي kuwa dhadhaxaadka iyo kuwa adag bay leeyihiin laakiin waxa maanta badan kuwa dhadhaxaadka oo marka jabhada islaamiga leenahay waa laba iskuul oo waaweyn baa ku jira salafiyiinta loo yaqaano sururiyiinta jihaadiin fara badan baa ka soo noqday waxay noqdeen salafiyiin sururiyiin dadku u yaqaana yani
السلفيه المعتدله التنظيميه سلفيه اقول ان ليس نظاميه iyo ikhwaana muslimiinka labadaa qolo jabhada ka samaysan baa yaa jira qolada labaadi waa jabhada la yidhaahdo cilmaaniyiin oo liberaaliyiina waa ka mid iyakuna jabhado waxaa jira wadaniyiina oo nationalism ya iyo akraada oo maraykanku wato intan kaleeto dhan waxay gargaar ka helaan turkiga maraykanku jabhada akraada iyo wataa kuwan kalena sheeka u socota laakiin maaha rag la wato maaha marka intaasay ka samaysan yihiin waxaa kaloo jira waa ciidamada iyo siyaasiyiinta way kala baxsan yihiin siyaasiyiintu waa axzaab midowda iyaduna oo inaha ka samaysan oo ku midowday wadanka in la xoreeyo fikirkiina dhiga haddowna raba in iyaku isa sharaxaan ay dowladda isku sharaxaan kuwan jabhadaha ana hadhow waxay noqon doonaan ciidamada marka lama rabo inay qadiyadii waxa la iska leeyahay diraasa la sameeyay qadiyadii Liibiya yaa laga baxsanayaa amba waxaa laga baxsanayaa tii Soomaaliya ka dhacdo kale maleeshiyadu waysan lama rabo waan dhageystay maalinta nadwa maalin dhageysanayay ay rag culimo ku sheekaysanayeen waxay yiraahdeen ma rabna inaan noqono Yaman ma rabna kalimaadkooda ma rabna inaan Liibiya noqono ma rabna inaan Suudaan noqono ma rabna inaan Soomaaliya noqono mid walba way macneeyeen afar scenario kale Soomaaliya waxa ka dhacay faraaq bay yiraahdeen markuu xukunkii dhacay faraaq bay mid dowladda burburtay marka nin walba meeshu ka ordi karo wuxuu doonaa inuu sameeyo waata mar rabna Yaman in la isku kala dhex qabsado oo Iiraan iyo Sacuudiga isku dhex qabsadaan mar rabna yiraahdeen Liibiya inaan Haftar iyo kala baxno iyo dowladii iyadna mar rabna yiraahdeen marka Yaman mar rabno Suudaanna mar rabno waxa kale oo inoo haray Suudaanna mashkilad laga sameeyay Imaaraat iyo Ruush Fagner oo dahabkiga la isku darayo anaguna ma rabna yiraahdeen marka inay Israa'iil iyo dawlad isku inta ma rabno maxaa rabnaa bay yiraahdeen khudwadaha ka imika ay socdaan mar way soo dejiyeen waa khadawad la soo dejiyay oo madruusa oo rag aqoon-yahana ay dejiyeen rag istiraatiijiyiina oo Turkiga fadhiya khidda lagu socdaa marka inuu Ilaahay khudda u nabadgeliyo waan u ducaynaa insha Allah taala marka haddaad soo koobto meel badan oo ka taabatay runtii hadda xagga gabagabada sii soconaa warbaahinta reer galbeedkan iyo qaabkay uga waramaysa iyadana iyo taxliilka saarayaan ka waramayna maxaa yeelay ayaan aragti kale oo ka duwan midda annaga haysana ay ka waramaan asbaabaha guusha marka degdega ku timid ko iyo laba hadaan dhahno maxay noqonaysaa wallahi horta sababta ko Turkiga leh waa sax Turkigu maanta taariikhda Erdogan wuxuu ku galay inuu dawlad Turkiga dhiso laakiin taariikh labaad buu galay inuu Suuriya badbaadiyay taariikhdu ku galay marka wax weyn buu ka qabtay isaga maxaa ugu wacan ma garanaysaa dadku tay ogeyn baa inaan sheega jecelahay sax ku soco waxa weeyaan ninkani wuxuu rabaa inuu isa sharaxo bar labaad Erdogan way ka dhamaatay tii dastuuriga isma sharaxi karayo laakiin dalkiina wuxuu leeyahay wax yar baa ku haray wax yar dhamee madax badan oo Afrikaan bay dhahdaan aniga naftayda waan ku diidaa laakiin wax buu leeyahay isagu wuxuu leeyahay markaas saas ku sharxi karaya laba arrimood baa caqaba hortaagan dastuurkii baa hortaagan soo dastuurkii ma bedeli karayo bana rabo inuu bedelo wuxuu sameeyaa wuxuu soo dadajinayaa doorashada waqtigeedii oo gaadhay marka loo ogolyahay inuu sharaxo si uu taa u sameeyo Suuriyaanku wadanka dhex fadhiya ma sameyn karayo waa inuu Suuriya celiyo qaxootiga ma celin karayo haddayna Suuriya bashar joogo nabad buu ku waayay xoog buu ku qabtay marka dantiisiina uu gaadhay dantii dadkana uu gaadhay faltaqal maa ala abni qad qudir bas ilaa fahmta si wanaagsan baash fiican buu sameeyay marka taasi isaga ayaa ka imatay midda labaad waxay ka imatay burburkii ku dhacay saan sheegnay mixwarkii difaaci oo ah Ruush iyo Iiraan Ruush iyo Ukraine buu soo dhaafi kar laayay odaygii soo socdeena Trumpna wuxuu ka yidhi war Raxmaan kula qabane laakiin waxaan kula ogeyn hasii galin wuxuu la qabanaya ma garanaysaa
waxaaba sheegay madaxweynaha Ukraine wuxuu dhulka uu haystay 4 mandiqadood waa uga talaasulayaa iyo fikradda qaba Trump baa qaba laakiin aniga waxay ogolaadeen aan gali karo NATO hay ogolaado marka Trump wuxuu wadaa inuu la heshiiyo Putin على حساب Ukraine laakiin isaguna inuu Suuriya ka baxo inuu fududeeyo asad inuu meesha dhaafo taasina way fududeysay waxaa kaloo fududeysay arrin kaloo muhiim ah waxaa fududeeyay shiicadii oo burburtay oo awoodii badneed lahayd oo ninkii Nasrallah iyo ragii khatarkii ay burbureen marka waxaa meesha soo baxday ضعfi iyo faraaq baa soo baxay ninkanoo gargaar badan siiyey oo waliba dhinaca hubka cirka diyaaradaha aan pilotka lahayn si fiican u shaqeeyay marka saas baa degdeg keentay wax tahay waxaan u imanaynaa marka anagu dee wadan hadda waxaan ku noolahay Mareykanka oo reer galbeedka hoggaankoodiiba ah warbaahintan siyaabo kala duwan ayay oga hadashaa runtii markaad Al Jazeera furto iyo markaad CNN ama Fox ka aad furto taxliilku waa kala duwan yahay marka sidee u ka fagareynayaan warbaahinta reer galbeedka arrintan iyada uga hadlayaan dantay kale yihiinse maxay tahay horta haddaan qaadano reer galbeedka iyo wadanada islaamka iyo carabta saddex baan u qaybeynaa wadanada carabta waxaa jira qanawaad carabtu ay leeyihiin oo isticmaalaya dhinaca xun oo soo saaraya ninkan goolaan oo ciyaal laayay dad xidhxidhay mujrima taariikh madow buu leeyahay maanta muxuu samayn doonaa yaabaysa luqadan iyo ilbaxnimadan iyo horumarkan ma sheegayaan waa qoladaasi alcarabiya meesha dhacdaa ka mida oday durayf dhacday ilaahu naxariistay ilaahay xabsa ka saaray wuxuu dhacdaa haddii ay bani qurayda noolaan lahayd munaafiqiintuna ay joogi lahaayeen qanaadkoogu wuxuu noqon lahaa alcarabiya qanaat alcarabiya جزيرة iyo TRT iyo العربي mid la yiraahdo wadada carabtu leeyihiin waxaan mudaynay 100% la jiraan isbedelka sheegayaan wixii saxay labadaba laakiin inta badan saaran reer galbeedka jaraa'idkoodu iyagu waa ka saddexaad laba oo kala baxay iyagu laba kii saddexaad waxaa jira BBC oo kale tawaazun baa ka muuqda BBC da waxa ka muuqda tawaazun BBC waa idaacad caadi ma telefishin caadi ma waxa yaroo ku dhibaya sunka si cilmi lagu dhibaya baal cad maaha habaysan tahay laakiin waa miisaan ku shaqeynaysaa way miisaamayaan jaraa'idka badi waxay qorayaan kulligooga waxay bilaabeen laba shay waxay bilaabeen waa ninkaas uu socday isbeddelna u dhacay laakiin waxaan ka baqaynaa dadkii laga badnaa in la laayo minority kanaaisti in la dumiyo dhulkii xadaaradu taal in la dumiyo waxaa la iska ilaaliyo sheekadaas yaa iminka soo dumarka xuquuq la siiyo xuquuqda waxa ogeeyay laakiin gabadh baa saa ka hadashay gabadh xijaab sidan oo caadi ah waxay tiri waxay naga dhaadhiciyeen wadaadadu inay dad xun yihiin laakiin maanta waxa arkay inay dad fiican yihiin ilmada iga masaxib wallahi dadkaasi waa inay wadanka xukumaan xalab baan ku soo arkay tiri waan la soo joogay xaqana xukumaan xijaab sidato dimeega qawl caadi bay tahay waxay tiri kana xukumayay kuwana nooga fiican marka waxaa soo dhanba saas uga dhaqaashay ma sha Allah shaqi gabagabada ayaan maraynaa marka maxaa doonaysa in hadda daawadayaasha ugu dambeeyay arrimahan ay kala socdaan kulay falanqeyntan way socon doontaa haddii umuuraha ay wax iska bedelaan mar walba horta waxaan aniga jeclaan lahaa mas'aa'ishan markaad diraasaynayno mas'aa'ishan ka socda bariga dhexe horta bariga dhexe iyo geeska afrika waa arrin qoratay sidee arrin qorata u yihiin waxaan dhegeysanayay soomaalida aad bay la socdeen markaa mashruuca laakiin dad fara badan mashaakilka yar ee soomaalida ayaa lagu mashquulshay hooseeya jubbaland iyo maaragtay dowladda federaalka waxa u dhexeeya xayga iyo puntland iyo waa sax inaan ku mashquulno qaarkeedna caybaa dhex socdo reeraa dhex socdo waxaas laakiin adduunku dagaaladii soo dhacay oo dhan ee bariga dhexe ka dhacayay geeska afrikana ka dhacayeen matalan dagaalkii saliibiyiinta markuu ka socday bariga dhexe xaggan uu ka socday waa markay soo weerareen Portugiisku dowladda cadal markii la burburinayay dowladda islaamka xaggan waa la burinayay markii qabriga nebiga in la faqa la rabay la soo faqayna ciidamo ka baxay Soomaalida ayaa badbaadiyay oo tagay
warkana geeyey oo ka maqlay Boortaqiiska waxa weeyaan taariikhda labada gobol isku xidhayay bariga dhexe iyo geeska Afrika lidaalika islaantii raais la oran jiray ee wasiirka arrimaha dibadda ahaan jirtay mashruuceegii la oran jiray bariga dhexe ee weyn kanasa Mareykanka waxaa jira mashruuc bariga dhexe ee cusub iyo bariga dhexe ee weyn ka weyn iyada wadatay maxaa waa meeshan bariga loo yaqaan ilaa Afghanistan maxay tiri ilaa Ethiopia Soomaaliya marka nala diraasaynayo istaraatiijiyan bariga dhexe ka mid nahay ay shay bariga dhexe ka dhaca adigana ka dhacaya wax kasto adiga ka dhacana iyagana ku dhacaya saameyn buu ku leeyahay muhiim bay ahayd markii Maxamed Siyaad Barre ilaahu naxariistay inuu u arkay in jaamacadda carabta Soomaalida ay galaan iyo Djibouti ay gashay muhiim bay ahayd jaamacadda carabta meel culus ma aha meel iska dhimatay laakiin ina laga mid ahaado ummadan muhiim bay ahayd maxaa yeelay bariga dagaalkii 73 badda cunaqabatay buu ka sameeyay in dabar jibs laga sameeyo Masar oo Israa'iil uu diiday soo marta marka Masaridu faantay ahamiyadda ay Soomaalidu leedahay استراتيجيكال ومركي اجت واحد لو يقاني سكيورتي بطا الامن القومي المصري ولذلك امن قومي مصاريدا من وقت فراعنتها الى عبد الناصر واحد لو اركي جرما تقانا صوماليا يسك افريقيا marka muhiim bay noo tahay inaan saa u aqrino oo u aqrin si caadiya arinta labaad inaan isku xidhno taariikhda iyo xaadirka iyo mustaqbalka muhiim weeyaan hadii jeer dhacdooyinka inaan ka shaqeynaa waa inaan ku xidhi karno wixii soo dhacay iyo wax dhici doona insha Allah taala